dawladda Soomaaliyeed oo sharaf kale iyo baarlamaanka sharaf kale inay maanta wixii ka dambeeya ayaan la isku qabsan doorashada waa midaan dheer sugayna waa midaan 50 sano sugayna maanta hadii doorashadii ilaahay hawada ka keenay oo madaxweynaha iyo prime ministerka iyo baarlamaanku ba isku raaceen wixii kale oo noo midnimana waa maxay waa gardaro inaan hadalno dhaano doorasho ma rabno doorashadu waa saas oo laga hadlaa aniga runtii inaan qofana aad ila intaay anaga doorashaan rabnaa madax banaaniyaan rabnaa xornimaan rabnaa qofkaan rabnaa inaan dooranaan raalli ku nahay maxaa jira xisbiga ee guduudan iyo xisbiga cad markaan aragno kiin anfacayna anaga haween galeynaa qabiil uma galeyn waxaan u galeynaa gabar mustaqbalka Soomaaliyeed dib uga fikir karto inteen ka soo tagno inteen u soconaa dhahayso warka inaan badiyo ma rabo ani maanta waxaan rabaa inaan sheego meeshaan u socono waan naqaanaa meeshaan kan mid waan naqaanaa hortana wiilashan lagu dilay dadka dilaa taagan raggeena lagu dilay dadka dilaa taagan in buuniga inuu dhamaadaan rabnaa inay dhamaataan rabnaa isla xisaabtan ay timaadaan rabnaa waxaynu ku iimaan kartaa markaan qabiil meel dhigo ee aan qarannimo u gudbo ee ku iimaan kartaa qaranna lagu leeyahay democratic way sanadkan aan ku kufno seerta ku timaado ilaa uu lixdan naga fakataa haddana qabiil ku soo gashay laakiin 40 nadiif ah galayso sharci dejinta oo nidaamka iyo kala dambeynta iyo sharciga looga fadhiyo dalka ummaddu waa daawanaysa maalinkaas qof walba waa fiirsanayay waxaan u diyaar garownay inaan ogaano wadanku meeshu u socdo waxaan nahay dawladeeda xildhibaanadeeda sharci dejiyaasheeda waa la fiirinayay hadda qayla ka yeertay taasoo nama farxad gelin marka nama farxad gelin waa ka xumaanay waa ka xunnahay waxaan ka xunnahay madaxweyne kasta oo raba inuu shaqadiisa gudto in la carqalateeyo waa ka xunnahay gudoomiyaha baarlamaanka in la carqalateeyo ma ogolin prime ministerka ma ogolin xildhibaanka uma ogolin wasiirka uma ogolin qof walba xasaanada uu weeyay in lagu dhowraa la rabaa waad ogtiin eray walba dad walba waxbay malaaka baxaan markii arinta baarlamaan ay tiri awal deputaat iyo parliamentarian baa la dhigi jiray laakiin anaga waxaan keenay erayga ah muxuu ahaa xildhibaan يعني قفك حلك عدبهاي مركا وحن جعلنا حلبانادeennu inay yihiin xildhibaanada barnaamijka inuu ugu jiro rag iyo dumar bas sifa kasta ku yimaadeen inay noqdaan kuwa xilku u dhibahayo oo mas'uuliyadiisu ay la culus tahay oo garanaya ma garo waxaan xilkan la saaray inuu san sahleynay inay dadku masilayaan la hadli maayo qolo walba dad xun waa ka soo baxaan xildhibaanada ka hadli maayo kuwa xilka dhaamay ka hadli maayo